والله سنة كان وحمتني دنيا وصومالي أسر كودي لكن جيتين لكن سيتي وتتبادل بها سيدا جيبوتي كينيا إثيوبيا نيذرلاند دنمارك سويدن waan gartay marka adigu Soomaaliyeed matalisi anigu Soomaaliyeed matalisi tartanka ma ka qayb gashay waa ka qayb galay waan kala tartanka goormaad gashay waxaan galay habeenkii salaasada soo galaysay haatan waxa soo baxay warar sheegaya in dalka istaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysa bay gala hadlay say u dhacday arrintaasi walaalo waxa u dhacday qadiyadani xalay toole mar ay marisay saacadu abaa 12 habeenimo ayaa waxa soo wacay maamulaha tartanka ama jaysada waxaana ii soo diray mid kamid ah shaqaalihiisa kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadanka ka bixi doono muddo soo socota haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhowna aan airport ku gaari doono wax sababa iyo wax magaranayay arrintoona inuu sheegay inuu jirisiiyay ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo waan weydiiyey waxaan ku war kulliga daanu Hargeysa ku noqonayo 5 maalin bay xasaneyd qorshahan ku baxay wuxuu yahay iyo sababta maxaa kalifay marka waxa ii sheegeen in hadalka gaabsanayo la xukuumaddu arrin ku socda in sidii uu qadarigu u baxay amaanu bixi doono waayo waxa jirtay dhacday ugu horeysay oo maadaama cilaaqada qadar la gooyay waxa jirtay ardaygii mutafaabiq ahaa reer gabar in isaga la celiyay marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyay mise isagoon galin isagoo waliba imtixaanku lagu qaybsanayo midna waa hudheelka midna waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meel la guriga ganacsiga gurfa tijaar oo sinac dibay meeshaas habeenimada ku qornaa dowladkii imtixaanka uu soo maray habeenimada uu hartaa habeenimada TV ka soo muuqdo waa la diiday diyaaradda hore laga saaray adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray arrintaas lagu soo saaray waayo imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo magaranayay waxay sugaysaa 3 kaalmood ugu horeeyay soo baxo marka goorma natiijada lagu dhawaaqaya waxa lagu dhawaaqay habeenka Jimcada marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay xagee baad warka ka soo xigtay imtixaanka waan dhageystay oo maalin walba ardayda wada dhageysanayay oo la qiimeeyay ardayda qiimeeyay runtii natiijada quraanka waa iska cad hoose maadooyin kala ma ahayn qarsan oo xagga qofka ka akhriyo muuqda marka runtii aan wax la taaban kara ka keenay tartanka waan aaminsanahay saddexda ugu horeeyay ka mid noqonayo aaminsanaantada ka soo haatanba miyaan natiijadii la soo saareen oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaan lagu soo dareen lama soo saarayo cabsi waxa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa lama soo saarayo natiijada waxaa lagu daray dadka magaranayay natiijada lagu yeelinayo meesha yaa ku sheegay warka dambe lagama yeelinayo meesha waayo garsoorka lagu ogada garsoorka inaan ka soo baxay nooga xataa garsoorka xakamkii hay meesha kadib markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma haya xataa qadida lagalama tashan ilaa hadda intaad airportka joogto kale markii airportka lagu geeyo kale ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay wallahi markii hore aan galayna ma arag wax safaaradda ka socda marka ka soo baxayna ma arag marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya marka hore sidee baad adigu meesha ku tagtay waran waxa jirta ay magacaabeen iyagu golahan xukuumadda dibay ay saareen Soomaaliya oo imaamyada masaajida oo meel walba ka kooban Hargeysa Muqdisho meel walba ka kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas iskiibiga lagu galaa imtixaan iskiibiga laga qaadaya muddo 3 bilood socda ku dhawaad marka soo kala reebay ranka ninka meesha uu yeelan ba soo baxa safaaradii uu ka soo iyagana safaaradii dhibatay soo saaray ardayda iyo ciddan ka agdhowi cidna ma ku sheegtay in cilaaqaadkan siyaasiga ah salahan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas kugu soo duulay intii tartanku socdo kale walaal igu soo duulo inaan bixi doono xataa saasantooda ka dareemay markaan arkay qanaadyada oo magaranaysa sheegaya in Soomaaliya lagu kari leeyahay in magaranaysa cilaaqada qabar jirto waa dareemi karay kulliba in ay dhib u keeni karto